Scandinavia sanadkii 793 miilaadiga waxaa jiray nin beeraley iska caadiya ku noolaa tuulo yar oo qabow aad u ba'an ka jiro baraf joogto ah bad aad u weyn ay galbeedka ka xigto dadkii tuulada la deganaa badda aad ay uga baqi jireen warigoodna galbeed uma safri jirin waxay aaminsaneen in wax nolol ah aanay ka jirin halkaas cidii isku dayday in xagga galbeedka u kacdanaanay marnaba soo noqon karin laakiin ninkan wuxuu arkay waxaan dadka kale arkayn wuxuu la heshiiyay saaxiibkii waxaana si qarsoodi ah u dhiseen markab fudud oo dheereeya badda goyn kara waana markii uu horeysay ay u sharaacdaan dhanka galbeedka halkaas waxa ka helan dhul barwaaqo ah khayraad badan cunto iyo nolol ka fiican qabowga iyo barafka ay ka soo carareen markay ku noqdeen tuuladii wuxuu isku dayay inuu dadkiisa ku qanciyo inay halkaas u guuraan laakiin hogaamiyey tuuladu wuxuu dareemay khatar wuxuu isku dayay inuu ka takhaluso laakiin wuu ku fashilmay ninkii beeraleyga ahaa wuxuu noqday hogaamiye ugu dambeynna isaga xukumay wixii markaas ka dambeeyay cidna kama joojin karin meesha uu u socdo wuxuu bilaabay weeraro ka dhan ah Ingiriiska markabyo degdeg ah oo ay ka buuxaan dagaalyahano arxan daran wax walba way biliqaysteen burburiyeen dhullo way qabsadeen magaciisu wuxuu noqday cabsi lagaga sheekeeyay Ingiriiska oo dhan markuu maqlay in Paris aan weligeed la qabsan karin wuxuu go'aansaday inuu halkaas u jeesto wuxuu ku sameeyay go'doon dheer laakiin muu jebin karin intaas ka sokow walaalkii ayaa heshiis la galay Faransiiska kadibna uu jabay ninkii beeraleyda ahaa waanu isaga tegay dhulkiisii sanado badan cidna ma ogeyn halka uu maray markuu soo noqday wuxuu arkay in dadkiisii iyo carruurtiisii aanay doonin dagaal iyo duulimaad wuxuu ahaa nin gaboobay laakiin maskaxdiisu weli way shaqaynaysay wuxuu sameeyay tallaabo yaab leh wuxuu iskiis isugu dhiibay boqorka Northumbria cidna ma ogeyn sababta uu isku dhiibay xitaa carruurtiisu ma ogeyn boqorku wuxuu go'aansaday inuu dilo wuxuuna ku tuuray god ay ka buuxaan masas sun ah intaan la tuurin ka hor boqorku wuxuu ku yidhi kani waa dhammaadkaaga isaguna wuu qoslay oo wuxuu ugu jawaabay halyeeyadu ma dhintaan sug ay qaabteedin ku soo degi doontaa markay wiilashayda ogaadaan waxay ku dhacay tallaabadan ugu dambaysay waxay ahayd xeelad si uu kiciyo ruuxa dagaalka ee carruurtiisa waxa xiga wuxuu noqday balaayo ku habsatay Ingiriiska iyo ubadkiisii oo uga aaray ninkan beeraleyga ahaa ee noqday boqorka mucjisada ee ilaa maanta taariikhda ku qorani magaciisu wuxuu ahaa Ragnar Lothbrok